duhur wanaagsan daawadayaal waa wararka xul iyo xaqiiqa oo aad kala socotaan Alool Media TV. qaybtan waxaanu idinku haynaa haddii alla idmo wada hadallo ordhigan iyo Putin dhexmari doona iyo sida madaxweynaha Turkiga u garab taagan yahay dowladda Ruushka, taas oo fajac ku noqotay reer Yurub iyo waliba hubka Moscow dalbatay oo iyaguna ku soo beegmaya waqti reer galbeed ku rajeynayeen in Moscow dhaqaale la'aan baahsan la dhacayso. taariikhdu waa 13 November 2022 duca qabayaal mar kale soo dhawaada. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii shalay sheegay inuu filayo inuu wada hadal la yeesho hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin dhowr maalmood ee soo socda. runtii buu yidhi kulankii ugu dambeeyay ee aan la yeesho isaga oo uu ka wada Putin waxaan u sheegay fikradeeda oo ahayd inuu u safro Indonesia shir madaxeedka G20, laakiin wuxuu yidhi waqtigaas oo uu Putin ku yidhi Erdogan aan qiimeeyo xaaladda kadib waxay go'aansadeen in wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov uu tago Indonesia 2 ilaa 3 maalmood ee soo socda. marka aan la xiriiro madaxweyne Putin waxaan heli doonaa buu yidhi fursad aan kala hadlo waxa uu qabo aragti ahaan iyo tallaabooyinka ay qaadi doonaan. Ruushka ayaa iska caabin kala hortagaya reer galbeedka kuwaas oo weerar aan xaddi lahayn oo si wada jir ah oo si joogto ah ugu wada Ruushka, sida uu sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Ruushku ma aha dowlad caadi ah buu yidhi, waa dowlad awood leh. dabcan reer galbeedku waxay weerar ku yihiin Ruushka si aan xad lahayn, taas oo ay wajahayaan. Ruushku dabcan wuxuu bixiyay iska caabin aanay filanin. hadallada Erdogan ayaa u eg kuwa uu ku dhiirigelinayo ama ku garab taagan yahay dowladda Moscow iyo dadka Ruushka. Erdogan iyo Putin ayaa ah saaxiibo si dhow uga wada socda dhacdooyinka caalamka, waana dowladda kaliya daawada Turkigu ee Ruushku ku aaminay inay wada hadallada Kiev iyo Moscow ay dhexdhexaadiyaan marka laga tago dalka Belarus oo iyagu kababa tirsan Ruushka oo ayaa la odhan karaa. si kastaba ha ahaatee wada hadalka madaxweyne Erdogan uu sheegay inuu la yeelanayo madaxweyne Putin ayaa ah wada hadal si ba'an reer galbeedka jiif iyo joogba ugu diiday. warbaahinta Mareykanka iyo kuwa reer Yurub ayaa saacadihii ka dambeeyay markii hadalkani uu soo baxay si weyn u qaadaadhigayay bal qodobada ay ka wada hadli doonaan, kuwaas oo aanay wax fahana weli ka haysan. dhanka kale wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa amartay dufad dheeri ah oo ah gantaalada maqalka ka dheereeya oo loo yaqaano Tirsikon, sida ilo ku dhow wakaaladda militarigu u sheegeen warbaahinta taas. sida hore loo soo sheegay qandaraaskii ugu horreeyay ee soo saara dufadii Tirsikon waxaa la saxeexay xagaagii 2021. qandaraas dheeri ah oo hadda Ruushku dalbanayo waxaa laga fahmi karaa in Moscow ku howlan tahay sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen dagaalka oo daba dheeraada. qandaraaskan dheeriga ah wuxuu ku lug leeyahay dhowr boqol oo gantaal, waana in la dhameeyaabay dhaheen gudaha 2023 sida lagu sheegay warbixintan. Moscow ayaa cunaqabateyn ba'an lagu hurgufay kadib dagaalka Ukraine. reer galbeedka ayaa qorsheynayay in hadda Ruushku ku sugnaado xaalad adag oo dhaqaale, balse waxa weli si caadi ah u socda daawada howlihii dowladeed iyo kuwii militariga. waxaa intaas dheer in dhaqaale ahaan Ruushku hadda marayo meel la mid ah amaba ka fiican halkii hore uu u marayay, taas oo mar kale fajac iyo looma fadhi ku ah Mareykanka iyo reer Yurub. haddaynu dib u xasuusano waqtigii dagaalku qarxay markii cunaqabateynta la saaray Ruushka, dhammaan wixii la odhan jiray ganacsi ayaa laga joojiyey. sidoo kale isu socodka maaliyadda ee caalamka ayaa laga joojiyey. waxa kale ee la sameeyey dhammaan wixii shirkada ahaa ee reer galbeed ku lahaayeen ee ku sugnaa gudaha Ruushka ayaa iyaguna ka qulqulay oo ka boqolay. waxaas oo dhan waxaa looga dan lahaa in dhaqaale ahaan la curyaamiyo dowladda madaxweyne Putin si ay markaa jilbaha reer galbeedka u qabsato. hadda waxaa taa beddelkeedii noqday in shirkadahaasi midaba mid ay ka hoostisto oo ay sameeyaan iska daba dhiib badan amaba fursado badan oo ay adag tahay in la xaqiijiyo inay weli la ganacsadaan Ruushka.
sidoo kale maraykanka laftigiisa wararkii shalay toole u dambeeyey waxaa layidhi meeg maxaa u dambeeyey waxa kaa la sii siday shalay oo u dambeeyey warkii aanu idiin soo gudbinay waxaa ka mid ahaa wararkii ku saabsanaa in maraykanku heshiis la saxeexday ruushka heshiisyadaas oo ay u saamaxaya in dhaqaalaha hore uga xidhnaa ruushka qayb ahaan haba koobnaadee qayb ahaan loo saamaxo loo fasaxo taas ayaa ka dhigan in maraykanku usii gurguuranayo dhinaca moscow dhaqaalaha ruushka ee liici adagna waxaa ka kow ah in aan reer galbeedku ama dowlad ha noqoto ama shirkad ha noqoto aanay daacad ka ahayn in ay curyaamiyaan dhaqaale ahaan ruushka maadaama iyaga laftigooda uu dhaqaalahooda ku xidhan yahay oo ganacsigooda ku xidhan yahay